kaliya waxaan ka xumahay nimanka hadda maamulka ee Somaliland u haya mashruuca u haya inay dadka marhaabiyaan wax magaratada iyo masaakiinta iyo 15 dawladood ee golaha ammaanka fadhiya mashruucana kulli gacanta waliba shanta fiitada leh mid kamid miyay ka hortimi shantuba waa inay taageeraan marka waxaasi waa iska ulaceela ku day iyo dadaan aqoon Itoobiya waxa aqoonsatay Israa'iil aqoonsigu nooca ma kuwaas oo ina ka dhaqaala badan haywaan ya adduunka ka dhaqaala badan intee bilyan isbay haysataa wax kala ma aha inay inaga in xanuujiyaan Soomaalida dagaalka ka soo bilowday Minnesota inay ku xanuujiyaan way mooyaan istaraatiijiyad ay ku degi karaan iyo maslaxad kale midna meesha ma taalabaan isleeyahay waa maadsan ka habsanay dunidu inaga u dambeeyay xalalkeena dadagay inay dareemayeen بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعنا خيارته هودا naga dhageysanaysa ay ku soo dhawaada barnaamijkii man hadal barnaamijka man hadal oo jimca kasta aad ka dhageysataan warbaahinta daljiraan oo uga hadal hadba mowduuc markaas mudan in laga doodo ama la falanqeeyo maanta waxaan uga hadlaynaa maamulka Somaliland ayaa jimcadii hore sheegay in ay aqoonsi buuxa ka heleen dawladda Israa'iil iyaga oo markaasi maamulkaasi uu ahaa mid 35 sano in ka badan raadinayay inay aqoonsi ka helaan dalalka caalamka kadib goonistaag ay ku dhawaaqeen 1991 burburkii dawladnimadii Soomaaliya kadib haddaba arrintaasi ayaa hadalhayn badan dhalisay iyadoo oo meelo fagaarayaal waaweyn ay gaartay arrintaasi ayaa waxa sidoo kale Soomaalidu ay uga falceliyeen siyaabo kala duwan oo dhinacyo kala duwan leh dadyaga ka hadlay oo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dalalka gobolka ayaa midkoodba si gaar ah uga hadlay Soomaaliduna oo kala aragti duwan tahay oo Soomaalida dhexdeeda marka laga tago Somaliland oo iyadu go'aan ku dhawaaqday Soomaalida dhexdeeda ayaa iyaguna aragtiyo kala duwan mowduucan ka qaba si gaarana maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa iyagu ka maamul ahaan ka aamusan arrintaasi inkastoo aysan shaqada arrimaha dibadda iyo midnimadu aysan ahayn shaqada dawlad goboleed haddana dadka Soomaaliyeed oo ka hadlaya ayaa aad u hadal haya sababta ay uga aamusan yihiin mowduucaas ayaan falanqeynana iyo waxa uu salka ku haya maxaa xilligan keenay Israa'iil inay muhiim u aragto Somaliland ayaan iyadana eegi doonaa waxa ay kala qayb galaya aqoon-yahano siyaasiyiin si dhow mowduuca ula socda oo kala ah aqoon-yahan Saciid Cabdi Firin oo isagu faaleeya siyaasadda Geeska Afrika iyo tan Soomaaliyaba gaalkacyo ayuu ku sugan yahay waxa kale oo ila jooga aqoon-yahan Maxamed Cabdullaahi Xuseen Shootaye siyaasi qoraa iyo falanqeeyo siyaasadeed Garow ayuu igula sugan yahay iyo aqoon-yahan Maxamuud Ciise Saciid oo isaguna kamid ah aqoon-yahanada reer Puntland ee sida dhow ula socda xaaladan gaar ahaan mowduucan si gaar ah wax uga dhahayay maalmihii dambe dhamaantiin aan idin soo dhaweeyo barnaamijka man hadal waa mahadsantahay qadar waa dhowna waa dhowna waa mahadsantahay ودونا محمود يا شرطاي iyo khadar ba salaamaya dhamaantiin adoo maasanta Saciid way shortay rabeyna ku bilaabo shortay soo dhawow Israa'iil marar badan ay madaxda Somaliland u direen warqado laga soo bilaabay cigaal Riyaale iyo Axmed Silaanyo iyo Musabixi iyo Ciro hadda u dambeeyay inay hadda muhiim u aragto Somaliland oo ay aqoonsi inay siiso maxaa ku soo beegay dadba ka qaar ba istaraatiijiyada arrimo ka hadlaya istaraatiijiyadan shalay jirin ee maanta ay arkeen maxay tahay خضر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين خضر أنا عول أديقة يبه دلجر سلام غالي أيان هو ذي سومرنيا وحان سلام يا صاحب ذي غالي سعيد عبد الكريم يو محمود عيسى حسين التقي وحان سلام يا جودهان بلشوين الصوماليات أو البنتلان قيب كيهين أنا أنت بدأت خضروا سؤال قيم ويا توبيك أنا وتوبيك أنا خنتي أنا هذا actual أو توبيك هذا تاجنا أنا very sensitive now أنا خضروا ورتا ماشى ضدكو إلى آدم با أما إنه أرجنا با إنه يجرم بالغيا با وإنه بدن تهاي قلدان أن غير إسرائيل بني إسرائيل أما قلدان زيونيستا حكومة زيونيستا خبرو آدي آدو فكرة ورنتي آد وحو قرشية
oo xilliyo gaara iyo maslaxadooda go-aanka u gaara wey haddii arrimaha dawladnimada xagga sharciga world orderka maanta siduu u socdo waxyaabahaas oo dhan laga hadlayana iyaga mastermind u ah oo inta badan maskaxda ay ka soo maaxanayso ama dhowrkii boqol oo sano u dambeeyay xataa waxa dawladnimada loo yaqaano istaraatiijiyada qorayaashii ugu waaweynaa wax ka qoray iyagay ka soo jeedaan marka waa niman u baahan markay sidaan oo kale faraha kuula soo galaan especially aadna kala mabda duwan tihiin oo khaasatan aad muslim tahay waxaad u baahan tahay taxadar dheeriya inaad yeelato oo aad uga fikirto waxaa laga yaabaa meesha ay u tallaabsanayaan ama dhinaca ay u guurayaan ba arrintu inaanay kaa jirin iyagu markay hortaada u socdaan waxaa laga yaabaa nabarku inuu gadaashaada kaaga yimaado hadday bidix u cararaanna inuu midig kaaga yimaado marka aad bay muhiim u tahay inaad witi tahay oo mar walba iyaga aadan eegin iyaga keliya aadan eegin xataa humaagooda adeegto markaad ishaysaan qadrow waxaan kaloo arrintaa ku darayaa hadda waxaa leeyahay somaliland bay aqoonsadeen anigu ma qabo somaliland inay aqoonsadeen mana qabo strategical sida dadka qaar ay u dhigayaan oo la leeyahay waxay rabaan inay soo degaan waqooyiga Soomaaliya oo ay xuutiyiinta iyo Iran iyo dalal kale oo islaamaba checkmate laakiin waxaa jirta arrin kale oo very funny ah marka horena u dhawaaqaysa ama u muuqanaysa inay tahay arrin majaajila ah ayna tahay dadka Soomaaliyeed inay fahmaan waxaa la yiraahdaa maamaha waxaa jira oranaysa ama falsafad oranaysa waxa doonto kalaba samay of all things laakiin tiger dabada ha qabsan shabeel dabada ha qabsan haddaad dabada qabsatana ha sii dayn qolo reer Minnesota oo Soomaali runtii aad iyo aad u wanaagsan Soomaalidana mesela nagu mesela ayaa shabeel dabada qabsaday dabada inoo qabtay shabeelkii dabada aynu qabsanay weeye waxa aqoonsiga Somaliland inala soo galay waa dagaal dheer de shabeelda dabada qabsato meel walba kala boodayaayo dhir walba waa kula jiiraya oo isla wuxuu rabaa inuu baxsado iyo sidii uu kugu soo jeensan lahayo ku cuni lahaa adna haddaad farsamadiisa fahansan tahay dabaad haysanaysaa sii dayn maysido ma rabtid inuu kugu soo jeesto oo kugu soo noqdo ilaa aad meel ku ogaatid oo dee waa cadow aad la dagaalamaysa aad meel iska saarto marka dhulka uu inala jiirayo cadowgaas ayay ka mid tahay arrintan White House-ka waxa ka yeeray waad arkaysaa waa ummadii ugu badnayd abad ee lagu soo hadal qaado White House-ka gudihiisa Oval Office-ka ayaynu noqonnay waa dagaal halkaa ka soo jeeda oo qoto dheer baa halkan inala jiiray haddeerna inala sii maraya Nick Shirley xaaladiisa iyo daykerada Soomaalida inala sii jiiraya mar dhowna meel kale ka buskicin doona marka tafaasiisha dib baan ka sheegi doonaa arrinta aqoonsigan iyo sida loo dhigayo ama aha dadka reer Somaliland iyo madaxdoodana waa naiif waa dad masaakiina runtii oo aan aad u fahmin waxa meesha ka socda laakiin waxaan ku fasiri karaa anigu nimankaas inay damceen suulka iyaga inay calashadaan oo afka gashadaan gowsaha u duwaan oo ay naga qaylisiyaan oo xanuujiyaan maadaama ay dareemayaan inaynu aad ugu xanuujinay North America waa intaasaan leeyahay maasanta bal si dadku fahmi karaan oo dhig oo dadku ay fahmi karaan maxaa iska galay Minnesota iyo Mareykan waxa ka socda iyo in Israel iyo Soomaaliland aqoonsato very good waxa iska galay waxa weeye horta dagaal baynu caashi gelinay qoladaas dagaal bay caashi inoo geliyeen golaha Congress-ka oo aynu fadhinay hadda aynu fadhino oo gabadheeda Ilhaan ay ka tirsan tahay waxaan isleeyahay qoladii laga qaaday waad ogeydeen oo qofkii ay meesha ka bedeshay waa qof qoomiyadda ka soo jeeda labo ganacsiga iyo siyaasadda caalamka especially dalka Mareykanka waliba si khaas ah Minnesota iyaga aad ugu jira oo aad u haystay oo meel ay isku ilaaliyaan way marka laga yimaado qoomiyadda Scandinavian-ka iyo ethnic minorities kale ee meesha degan inagoo taa ka qaadnay oo arrimuhu ay maaragtay ay sida ahaayeen ayaanu haddana waxaanu ku qabsanay mayorkii Minneapolis faraci dilay isma ayan lahayn weligeed waa la idinku qabsan karaa faraci dilay ku baxsadeen
inta hadday dhacday wake up call bay u noqotay qolada Zionistiha dabadeedna waxa la bilaabay in Soomaalida burush madow la mariyo waxaana burushka la soo mariyay meesha ugu saameynta badan adduunka ama wadankaas oo ah Oval Office-ka ama White House-ki laftiisii madaxweynihii inuu si irrational oo shacabkii Mareykanka iyo adduunkiiba uu la yaaban yahay inuu Soomaalida Mareykanka khaasatan reer Minnesota reer Minneapolis inuu uga hadlo oo burush uu isugu dayo inuu u mariyo falilahi alhamd dagaalkaas waa ay ku guuleysteen Soomaalidu si wanaagsan bay uga falceliyeen then waxa isxigay dhowr arrimood oo dagaal oo kale sida ilhaan in laga saaro golaha Congress-ka على الأقل إن جدية يكون جرت لجا صاروا أنت بدل كي يكونوا فتي أو إلهي بقى وجهيلي نوجه هيلي طبعا ده نوح الله بلابي مركا إن ليدا الصومالي ولا ترحيل يا أو ICE immigration and customs and enforcement أما إن معرفة نلقصو هيادس إن نلقصو ديرو مسيبونا أنت أوجب الصومالي ده over 98% أما كبسي بدنبا إن مواطنين أهاين أنت كلنا إن يدلك الشرع كجوجان أما green card أي هستان أما بروسيس شرعية أو شرع سويدة إن يكجيران خاصنا إلهي بالجو يقول كانوا كروفن دبنا fraud إيو وحيابة كله أو العجلة مسوما سوقي إيو إن لقاله إن كمبينية ذي إن إيو institution ذي كله أي جعنت كويين أيا أو حفظت له وصل دلندلية إن fraud كدليه كل جليهن إن تاسينا وشغين وذيو كل كلا جسوا جري غلا ديزاين استها أو أركتدا وذيو سوالف دولام كسو قاضي إن أنت أمرك يدعي للفيرية أوكي حاجة أو يكبوهس أو أنا كل فن كرنا أمرك الصومالي سي أنا سفي عنه وحنو جنة because what أكتي هنا سوالف أمرك ليهن دول كان 3000 years ago أنا نلعب بلنغادي وهيمر ومجاجلو لقى جوابيه درباح الصومالي للربي إن لو دفته. هسنا وحي كنتي مركا إن أي سيجارة أطابة تقول زاين الساعة وكبر الحوسة إن أدونك كبر الحوسة دول كان هذا أي بوبين وغير فلسطين إن يجا الله بلنغادي إيو أرد كلو أربعة كلو كل مجاجلو الصومالي أي سمايان كل سيجارة أتابعني سيدا جينيسيس لبيه طبعا 3 ayaa waxay sheegaysaa hadii Soomaalida aad u roonaataan Ilaahay waa idin barwaaqeynaa waa idin roonaanaya hadii aad u roonaan weydaanna Ilaahay waa idin ciqaabaya waxa soo dhan waxay si personal ah bay u qaateen oo iyagu oo in dhibaato aanu iyaga si gaar u taabanaynin marka sababta ay u yimaadeen meeshan saasay ahayd waxaan oran karaa tusaale istiraatiijiyad ma noqon kartaa Somaliland Israel ay ku aqoonsato maya sababtoo ah Africom oo ku dhegan oo Babel Mandab saaran oo xuutiinta u jirta 50 ilaa 70 kilomitir ama mile ba aan iraahno hadaan badino ayaa Mareykanku degaya Mareykan iyo waad ogtiin ciidamada Yuhuudana waxa ma kala aha halkaasay kaga duuli kareen laakiin talaabo kama ay qaadin Djibouti baa hor istaagtay in kala hadashay xuutiinta inay duulaan ku soo qaadin iyagana halka aan lagaga soo duuli doonin إن sovereignty جيبوتينا أن لو حد جدبين قال الحوثيين أي كحد جدبين يقول أي كنا بتجليان خلي جاز مريكان كهالك كويا إنه سكوسو دولي دون وعتاكو خسرت مريكان إنه مراكب تيجي كاري ريسكا إنتو كانوا إنه سكود إنه الحوثيين تلا دجالمو والشغين ويدارن تاسوي باك فاير جرودي آخر كي مركا إن وحيكو خسبين إسرائيل إن قادته هشيس كتفاصيل بدن بأكوجنا لكن وأندل مريا هشيس كفلسطين أحب جوجين تها إن قادته فإسرائيل وخصبي. مركا يضع إيسات هاي وح استراتيجية كمه اللي كان ميل بقول إيو كونتون أما صدق بقوله كيلومتر أجرته أو جنتالك أي سوردان أي حتى إن فيشولي أي أركي كران روتينتو إن إسرائيل سودكتو وحدنا أجرا مجران. لكن رونانتي وحي قيب كسي أهان كرتا أو كله استراتيجية دير أو كله إسرائيليين تأيليهين أو دلالك إسلام كحيران دلالك إسلام كعالم كورن كل إنه بربوريسو جيجيبيسو أو دلال يرير كديكتو وأنا قعنت أي نلقو إيضين أيو أديكستو دلك إمارات كعربتا أو وحيابا بدر نوع عصو كان كشغيي يمن هدا أدركيسا وحي كدعي Soomaaliya adarkayso meelaha ku lug leeyihiin sida ay dalka khilaafka Soomaalida gudaheeda ay qayb uga tahay aynu ognahay Liibiya wixii ay ka samaysay sida xaaladdu ay tahay hadda tarkaba loo saaray in la kala jarjaro Liibiya Suuriya ay qayb ka tahay
suudaan waxa ka dhacayo ay qayb weyn ka tahay oo waliba reer puntland lagu eedeynayo la leeyahay imaaraadka idin mara kala qaybinta iyo burburinta suudaan marka waa sheeko nooca ku salaysan aqoonsigan waxa lagu sheegayna wax kale ma aha inay inaga in xanuujiyaan oo Soomaalida dagaalka ka soo bilowday Minnesota inay ku xanuujiyaan way mooyaan istaraatiijiyad ay ku degi karaan iyo maslaxad kale midna meesha ma taalo baan isleeyahay waa maadsanta waa maadsantahay waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo dhinaciisa Saciid Cabdifarin soo dhaw Saciid bal si guud aqoonsigan iyo waxa uu ka bedeli karo juqraafi siyaasadeedkii guud ee geeska iyo gaar ahaan Soomaalida maxaad ka dheeleen خبر وما سنتحي بمعنى خطوة السلامية أديك صارت كلابا ومد السلام كان حلية جمعونا سميلة شوغان با وركا شرطة يو مقازين يو وإنما كان مكري غوضا إنو يهين من مكري بدن وعن مكري غوضا لغا انت بدن لغا فكان كرين وتاقى سنة هاي waxaan isleeyahay oon ku daraya ku xoojinayaa intuu soo shortay saa la socotid laba qodob baan rabaa inaan xoojiyo mid waxay tahay Netanyahu kiis baa ku socda corruption oo maxkamadda oo socda wadamadan hadda qarbiga waxaa laga bartay markii kiis ku socda inay kiiska meel kale u weeciyaan sidii markii Clinton uu weeraray Suudaan oo kale markii lagu eedeeyay gabadhii Monica Lewinsky lagu eedeeyay sida hadda uu rabo Trump inuu u weeraro ama Iran ama Venezuela isoo kiiska ka cararaya absin ka cararaya sidaas si lamid ah inuu indhaha caalamka Netanyahu meel kale u jeediyo oo kiiska soo ku socday oo kiis kale u furo oo ka weyn arrintaas waxaan isleeyahay waa logic waxaa kaloo jira oo shortayna taabtay adduunka waxaa la yidhahdaa client state sida hadda imaaraadku uu samaynayo oo dekadaha Yemen iyo Soomaaliya iyo meelo badan uu ugu habsaday waa boos celis uu rabo inuu ku gorgortamo berrito si saldhigyo military looga samaysto dadku yaysan moogaanin dagaalkii 1973 ay galeen Masar iyo Syria iyo Yuhuuddu Soomaalidu qaybna xaalad ku lahayd Soomaalidu waxay xirtay Maraakiibta dagaalku waxay xireen baa madan bay xireen inaan marka xusoo marin ciidamadii halkaa ka joogay masaaridana xoolo iyo dhaqaale fiican baa loo geeyey marka barmandab waa marin muhiim ah oo asaas intaa ka bacdi Israa'iil iyadana aan aqoonsanayn oo waxay haysataa Baytul Maqdis haysataa marka nimaan ictiraafsanin maxaan iga ictiraafaya kaliya waxaan ka xumahay nimanka hadda maamulka ee Somaliland u haya majaraha u haya inay dadka maranaadiyaan wax magaratada iyo masaakiinta iyo oo yuhuud ictiraaf baan ka keena ay maanta ku faanayaan runtii meeshii laga filayay meel ka sokaysa bay nimankaasi ku kufeen waxaan markii ku soo koobayaa waxba kama bedeli karto xaaladda Soomaaliya geeska Afrika aqoonsiga Israa'iil haddii aysan ahayn khidad Maraykanku ka dambeeyo oo isagu uu ula baaco ugu tukubaya halkaa inuu yimaado Israa'iil waxba kama bedeli karta khidad Soomaaliya aqoonsigooduna ma shaqaynayo waxna kama bedeli kara maslaha waa ka bax waa maasantahay way maxamed soo dhaw maxamed maxaa ku daraysaa odayaashu waxay ka hadlayeen waxyaabo badan bay ka hadleen laakiin bal intii aan ka haleeli karo baan isku dayayaa marka waxaan ku hormarayaa Jubbaland iyo Puntland hadalkii hore horta Puntland iyo Jubbaland uma xil saara hawshan dawladda dhexe ayaa xilkan iska leh wasaaraddeeda arrimaha dibadda iyo safiiradeeda iyo shaqo kale ma qabtaan waa shaqadoodii oo dayacantay
puntland iyo muxuu ahaa jubbaland iyo maxay u aaminsan yihiin iyo waxaasi iska hadal tiro baan isaga qaadanaya iyo dadaan sharciga iyo nidaamka dawladuhu u shaqeeyaan aan garanayo waxaan kaleeto eegayaa horta golof cadan iyo hiirsiigu waa shaqo iskuma laha way kala duwan yihiin dadka laakiin way isku daraanay laba aag weeye marka golof cadan istiraatiiji muhiima oo ma garanaysa ahmiyad weyn leh wey waa haddii dawladuhu daneeyaanna anigu waa aaminsanahay in maraykanku raacinayo golof cadanka israa'iilna uu iska musdameed u yahay ma biciidsanayo taa halkaasaan ku dhaafayaa imaaratul carab waxbaa laga sheegay waa la eedeeyey laakiin anigu waa la yiri bay sheekadu u badnayd dawlad weeye xiriir bay dawladaha la samaysanaysaa mid baa mushtariya mid dhaqaale 70 dekedood oo adduunka ah oo caalamiga Ruushia iyo Mareykanka aad aragtay bay xukumaan dekedahooda oo la wareegay marka wax ceeba ma aysanaha dekedaha ma aragtay Boosaaso iyo Belberena in focuska lagu shido dekadii xamarba waxa haysta Turkiya aeroportka Turkiya baa haysta marka taasi taa halkaasaan kaga gudbayaa aqoonsigaan u soo noqonaya horta aqoonsigu waxbaan aqoonsaday maaha aqoonsigu shuruud buu u baahan yahay shardiyaduna waaba la yaqaana haddii dawlad la aqoonsanayo Kosovo 100 dawladood oo Mareykanku ku jiro baa aqoonsaday golaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhaxaysana kursi kuma laha calankooduna kama taagna waad aragtay meesha la yiraahdo Taiwan ugu yaraan 7 dawladood baa aqoonsan waana laga baloogay marba China iska meesha ku matali jirtay waxa kaloo aragtay gobolka Abkhasiya la yiraahdo ee Ruushku Georgia ka gooyay Ruushka iyo 5 dawladood baan u malaynayaa iyo 6 dawladood baan qam wax taageersan meelna ma jiraan jasiiradda Qubris waa aragtay Turkigu dawlad buu ka dhisay wax aqoonsanina ma jiraan marka aqoonsigu shuruud buu u baahan yahay shardiyadina meesha dawlad way iskala macaamili kartaa sida Mareykan oo super power Ingiriis Faransiis kulli waxay aaminsan yihiin kulli waxay aqoonsadeen Kosovo meelna taga weyday Ruushka diidada qayaxan ku gudbay golaha ammaanka markii la isugu yimi marka horta aqoonsiga halka iska daaf Israa'iil baa tagaysa Mareykan hadduu xataa aqoonsan lahaa shardiga loo eegayaa shuruudaha waxa kamida wadanka uu ka go'ayo meeshiyano ma isku waafaqeen waa shardiga koowaad 15 dawladood ee golaha ammaanka fadhiya ma isku raaceen kulli gacanta waliba shanta fiitada leh mid kamid miyay ka hortimi shantuba waa inay taageeraan marka waxaasi waa iska ulaceela ku day iyo dadaan aqoon Ethiopia waxa aqoonsatay Israa'iil aqoonsigu nooca ma kuwaasoo ina ka dhaqaala badan Taiwan ya adduunka ka dhaqaala badan intee bilyan isbay haysataa marka waxa weeye waa iska waqti lumis waxaan ku soo koobayaa dadkeenan gudaha ku jira odayaal qaylqaylinaya iyo baan arkayo waxay leeyihiin Puntland maxay la aamusan tahay war Puntland shaqada ma leh waxa weeye hadday eed yeelato dayacanto hawshaasi waa la yaqaanaa cidda iska leh dawladda dhexe iyo wasaaraddeeda arrimaha dibadda weeye hadday guul soo hayso iyada weeye marka wax Puntland ka khusaya ma jiraan waxbaan idin sheegayaa sheekada xamar ka socota haddii ay sii socoto hadda 15 sano bay socotay xasankii hore kii dambe farmaajo wadanku waa dayacan yahay dambuuba u kala go'ayaayo qaarna Ethiopia loogu darayaa qaarna Kenya qaarna Imaaraat waa u jeedaan hadda in la hanbaaburo maaha oo la hanbaaburo oo ma garanaysa yani dadaan eedahayn eeda la saaro Somaliland waxa weeye muraad bay leeyihiin muraadkooda maxay u dooneen maxay u raadiyeen kuma ceeboobayaan Israa'iilna kaligood maaha caalamul carab oo dhan
dawladihii ugu horreeyay ee adduunka aqoonsaday 48 markii meesha laga dhisay shaah maxamed rasa bahlabi baa u horreeyay oo Iiraan xukumay Turkiga ku xigay dawladaha islaam markaa islaamka u xoog badan bay ahaayeen ilaa iminkana xiriir bay leeyihiin Iiraan ma ahay oo wadaad qabsadeen ma ahay marka inaasan ku soo koobaya waa mahadsantihiin ومستوي سعيد بهروين أوصل لابس سعيد أرنتني واحد مدة الصومالي إني كوسي كلا فوقادين أو أنتي من لماذا أقولي حتى قاركود إليهن ماشي وحوم يلان الصومالي نمدي ولا جود عليه سوالا أنا حسكتك تود ضدك كلنا حتى شدين بدك قار ضد النوع عصله هسا محاكي يعني حلقان وما سنت يعولو ولا هرت مركب قريسة وحان ربائن عن إرادو وأنا أمي سنة هنا سنة إسرائيل ماشان أقونسي حطر كريم لكن يسنقون خالق مريان ماشاني ضلاسي يسنقون إن يرئيو وين قفل بقى الصومالية ميلو تشوغو إنو الدفاع من نمضى يقنوا الصومالية هو مهم كانت هسن كبحية وماشا يسنقون خالق مريان intaan su'aashaada usoo ka jawaabin arrin Puntland iyo Jubaland horta sidii Maxamuud sheegay shaqadana waa shaqada dowladda federaalka waana arkaysan Abuukar Balle khayr laha siiyo waxaa ka dhigay waa arkaysan Security Council waliba hadda waxaan la wareegnay bishii aanu ka ahayn madaxweynaha Security Council dowladuna way dadaalaysaa runtii way dadaalaysaa waan isleeyahay كل وحن كورق بوندلان أو اللد باهي ستا بوندلان ومسكي قلة جس أبكا قشروي واللي يري حداد لقديمنا وعد إيمان إسا حداد تفسينا وين دبي إسا وهدي حسن تاغيران ودولد فضلك تاغيران ويراهدان حسن ورنتيسنا وحيث ليهين أما معارض قدومستان wixii awal hadii dadka lagu kacshay baa meesha ka baxaya taaway ka baqayaan hadii ay Soomaaliland taageeraana hadii iyana waa dambi kale oo dalkii bay kala goynayaan marka in wasiirku marra hadlo marra si kale u hadlo waxaan ka soo qaadayaa intoona xaqi min noo socon marka inay iska aamusaan oo u daayaan dowladda federaalka waxay ku dhaanto shaqadooda ay tahay ma garanayo hawshaas intaasaan dhihi lahaa أما الصومالية أرنتنا هرتا وأرنت كا هذا أنتوا أسبوع عبادي أن تشوفيو نوع حركة الصبح أنت نالس أفريستا كهالية إسرائيل الصومالي لان محل يري كهالية مغرب كل أنتوا كل هذا قلب أريا مارس جالس ما أنتوا بحثوا حكالي مركو كوا ما قاعدين يتكبر ده ضدك مركو حنا ويكوا ريرين لكن هو حنا من سنة ما aha inay dadka si kala fogeynayso waxaan aaminsanahay Soomaaliya Israa'iil waa ku soo duushay waxaan aaminsanahay inay midnimada Soomaaliya soo dadajinaysan aaminsanahay taas la kala fogeynaayo waa midnimada Soomaaliya baa soo dadajinaysan waa aaminsanahay inta waxa dheer Soomaaliya waxa ku maamulada niman ku furduniyo ku raran walaal nimanka walaalaha ee Soomaaliland xukumaha dalka iyo dadka ay hadda odayaasha u yihiin kama difaaci karaan hardanka siyaasadeed ee Israa'iil iyo Xuutiyiinta iyo meel walba sota kama difaaci karaan waxayan bari xal u heli doonin ummadda islaamka aysan ku soo gaabin yeysan ku dhibin yeysan dhibaato hor la u keenin waxba soo xabal bay leedahay waxay dhimaan mana wax soo kormiyaan kuwaas markaan soo gabagabeeyo buuqa hadda dhashay wuxuu soo dadajinayaa midnimadii Soomaalida iyo in Soomaaliya Israa'iil halkaan ugu aaminsanahay qof walba meeshiisa warankiisa iyo ushiisa iyo qoriisa ka qaato oo midnimada Soomaaliya difaaca soo dadajinaysa insha Allah assalaamu calaykum intaan u gudbin martida kale Saciid baan su'aal ka qabaa arrintiisa oo ah midnimada ay soo dadajinaysaa buu yiri Saciid laakiin waxaa jira shalayto xildhibaanadii gobolada Togdheer iyo Waqooyi Galbeed ama Hargeysa iyo Burco ka soo jeeda ama xildhibaanada Soomaaliland aan dhahno Muqdisho jooga waxay soo saareen war murtiyeed u muuqday inay ku taageersan yihiin
aragtida Somaliland si gaar ahna aysan soo hadal qaadin aqoonsiga iyo waxay ka qabaan laakiin ay leeyihiin laba dawladood ha loo wada hadlo laba dawladood baa 60kii la ahaa Muqdisho iyo Hargeysa waxa qaybsadeen aragtida noocaas ah iyadoo ay xataa dadkii midnimada lahaa waa aaminsanahay ay qabaan midnimada ay soo dadajinaysaa maxay tahay waad sheegaysaa ma santahay awil horta su'aal xaloodo horta dadka baarlamaanka ku jira tayadooda la socona ama ka yimaadeen Somaliland ama ka yimaadeen Puntland ama meel kale ka tageen umaleynmayo kuwaas hadda hadlay iyo kuwa lamida warkooda inuu macno yeelanayo umaleynmayo sababtoo ah waxay meesha ku joogana waa ka warqabnaa sababtoo joogana waa ka warqabnaa meesha leeyahay waa masalan ma tagi karaan waa niman u hadlay sidii si xamar ugu noolaan lahaayeen falankeeda raadinaya marka warkooda aniga wax qiimaha lama laha meesha joogana macno kuma leh tay leeyahay waa masalan macno kuma leh marka mushaarkooda iska qaateen iska joogeen waagi Soomaaliya heshiiso hala gaar insha Allah awilo كلمتين يدي ولا سعيد با وتا سوق ما انت كان كلا بخا nimankaas mushaarkaas ka qaateen xaqana ma marka ya midnimada soo dajinaya marka way yahay midnimada cid soo dajinaysa ma yeesay ku imaanaysa noo sharax feeri waxaan ka hadlay shacabka Soomaaliyeed anu waxaan ka hadlay waa shacabka Soomaaliyeed Hargeysa iyo Burco waa arkaysay oo calankii Israa'iil baa la watay oo meel kasta lagu xardhay xamarna dadkii siyaasadda mutalaada u joogay waxay leeyihiin waa macnaha waa inaan power share cusub la nimaan cid midnimada ma wixii baa keenaya marka midnimada leedahay waa soo degdegaysa walaal kooxda mar walba mas'alaysay Soomaaliland oo xamar joogtay hadalkooda mar walba sidaas oo ah ilaa maanta meeshii yimaadeen waxa soo hartay dhowrka qof oo la buunbuuniyo calanka qaatay ha fiirinin inta aamusan oo reer Somaliland oo waxaan ka xun oo malaayiin dadkii oo khayriyada isugu soo baxay oo aan sawiradooda iyo muuqaaladooda arkaynay de waxay ahaayeen dad aad u badan ma ahayn dhowr qof fiir awilo kumalihi ma jiraan dad waxa kan taageersan kumalihi laakiin waxaan hubaa oo rag badan u raaci doonaan shacabka Soomaaliya has asali la ras gamboni ilaa iyo loo yacdo inta u dhaxaysa jooga ama meel walba adduun ku nool yahay haatee arrintaas meel uga soo wada jeedaan yuhuudna ma taageerayaan ma rabaan way maxamuud baan codsaday soo dhaw maxamuud awilo horta waxa weeye hadda 20 sano cartaba ka soo bilow ilaa iminka dhowr 20 sano weeye dawladii xukuumadihii halka joogay kaba soo qaatay kii la aqoonsaday 15 sano dawladda la aqoonsanaa walku meel gaar bay ahayn maxay qabteen Somaliland lama hadlin lama heshin awood lama saarin waqti laguma bixin wayba muuqataa oo goboladii joogay iyo jamhuur ummadii kale baaba la sii kala durkinaya marka Somaliland maxaynu u eedaynayna meelaynu ugu yeero hadda aniga iimaba muuqato xagee ugu yeeray waxa weeye aniga dawadu waxay ugu la jirtaa iyada oo la helo nin hogaamiye dhaba oo fahmi kara xilka loo dhiibay laakiin dad farataysato ah oo meel hoose ka xisaabtamayo waxaasba aan u jeedin waayo 30 sano baynu dawlad la'aanayn adduunyadu inama sii wadayso hadda golaha ammaanka waa layna ka difaacay laakiin ma sii soconayso lacag maalin walba iyo waqti iyo ciidan in lagu bixiyo waxa weeye marka Somaliland xagayba timaada meelay timaado waa male hadii halkan dawlad laga sameyn lahaa la hagaajin lahaa midnimadii laga shaqayn lahaa iyaga isku xishoon lahaa oo iska soo noqon lahaa yaa la gorgortamay Somaliland yaa u tagay yaa waqti ku lumiyay yaa kharash ku bixiyay ma jirto kuwii kalaaba la sii kala irdeynayo la sii kala wada waa mahadsantihiin marka adigu waxa door bidaysaa Maxamuud in Somaliland ay iska maqnaato ee dadka kale ay wada hadlaan maya anigu midnimada Soomaaliya waayo waxaan eegayaa dal ahaan iyo dad ahaanba waynu yarahay Jarmalkii baa midoobay oo labadii Yamanood baa midoobay oo adduunka dadka waa lagu xisaabtamayaa markii laga reebo Djibouti iyo Eritrea markii laga reebo iyo South Sudan dadka inaga ugu yar bariga Afrika inaga waan meel kale aadin marka in hadeer mar labaad layna sii kala qaybqaybiyaan raalli kama ahi laakiin waxa ii muuqata xagaan Somaliland ugu yeeraa
dawadu waxa weyn xasan haddaan hay waa jacayli lahaa resolution baan dhiibi lahaa wadankii waa kaasaan oran lahaa isaga cunsurka weyn hadda ma jirto isaga iyo maamulkiisa sababtoo oo ah halkaasba kama fakerayaan maba ka fakerayaan midnimadii iyo dalka dawladnimadiisii iyo qiyamkiisii maba ka fakerayaan haddana waxaan ka baqayaa inuu beri maaha saadama isagoo nafiyaahu la joogo oo Jerusalem ka digay inaynu aragno wallahi kaasaan ka baqayaa anigu ayo basatay shortay maxaad ku daraysaa arintaas ay ka hadleen Saciid iyo Maxamuud خبر عول أرياد وضمهات سمتاي أن سعيد إيه محمودنا ومهتسينين إن غدر ورتا إن أرنتو إن سومالي لان تيجتان كذا إيه قويدة طريقي ما هيسو ورينا أمهين أول باونو إن بدن كهذلني حدرنا ما هيسو ما أنت أرنتي ما بدك كويس كان نايف حكومة هذا جوكتا إيو أدباد ولا بيسا علشان سدا أيان سياسة الدون كان ولا صعن sida mugdiga ah oo ay gudayaan ay wax doonayaan iyaga halka iska dhig Soomaaliya taxadarto oo xadgudubka lagu sameeyo ay iska ilaaliso oo aynu iska ilaalino oo dalka midnimadiisa reer Puntland ahaan cost badan bay inoo ku kacday oo billions trillions of dollars gaari kara sababtoo ah dhisidii Puntland baba siyaasadeeduba waxay ahayd in la isu hayo Soomaaliya oo ay kala tagin haddii aad fahmaysaan waxaan ka wado waana ku soo sirnay Soomaali oo dawladda oo soo gaarsiinay maanta meesha ay taagan yihiin oo runtii meel positive ah baanu keenay maanta ana qof reer Puntland ma oran karo dalku ha kala go'o hadduu yiraahdana hadee waa qof aan habeen jirin weeye baan anigu arkaa xukuumadeennuna kuma dhacdo inay tiraahdo waxaan ogolahay aragtida secessionist ah qof ka mid oo siyaasiya ama qof isira ama qof iska waalana marfuucul qalama ama aan inala socon siyaasadda mandaqadan ay ku dhisan tahay iyo waxay ahayd taariikhda soo martay aan la socon waa oo iska emotional iyadu waa wax kale hadda waxa la yiraahdaa maxaa xukuumadan u aamusan tahay odayaasha ku raacsanayo horta arrintu waa arrin federaal xasan sheekh bay u taala xasan wuu jeclaystay in Puntland ay ka hadasho Saciid Cabdullaahi Dene uu ka hadlo laakiin Saciid wuxuu uga hadlayn ana hadda u sheegaya ummadda Soomaaliyeed iyo cid walba iyadoo waliba daacad wuxuu uga hadlayn xasan wuxuu maagan yahay doorasho uu rabo inuu boobo shirkii Kismaayo markii la isu tagayna qorshuhu wuxuu ahaa in la qabto doorasho parallel ah hadii Saciid boobo Somaliland ay qayb ka tahay marka iyadoo arrintaas ay karsamayso oo miiska ay saaran tahay Saciid ma carshaashayn karo cidii uu hiilin lahayd maanta waxa kaliya uu uga hadlayna waa inta ما هي نتاجرسين يا سوماليلاند جو أنت هذا ما قبانونه دو تهران وجهضلي إن لكن إيشو سياسة نوع تاجر تنكله كذا وسعيد شيء إن وما هي لينكرو إن حسن شيء سوى واجب كيسي أي تهاي أرنتاني أو أي هيين مدة أنت هالك مركا بنتنا أرنت هذا يجوب على الله وضبه وحاول كل أنتوا كل على باش هذا حسن شيء وهالك سوى جارسيو هذا كل جا وتيو هذا عنده وجوجينين واجب كاغنا يا هيدو your assignment waxa hadda ka khaldan tsara xukuumadii guud baa lagu soo duulay waa run qayb bay ka ahaan lahayd inay ka ahaadana way ahayd laakiin internal split iyo fragmentation gudaha inuu burbur uu ka jiro oo la isku fiirsado waxyaabahan waxa keenaya waxa weeye siyaasadii xasan sheekh cudurdaar ma tahay oo de ma la dhihi karaa maadaama xaalad xun la galay dalku hadii uu dagaal galo de waxay ahayd in xukuumadda markaa joogta la daba istaago dabeedna markii dagaalkaas dhawaad hadhowdii la isweydiyo la yiraahdo ruuxu dagaalka ku galay iyo maxaa dhacay iyo maxaa ina helay midnimada hadhowdii markaa kadib oo waxa ay dhamaadaan la isweydiyo ha way jirtaa adduunka ilbaxa oo dhan taas wuu isticmaalaa inagana way ahayd laakiin hadda khatar weyn oo dala ah oo dagaal hadda duulaana oo caadi oo la soo qaaday weli arrintaas ma jirto af bay taagan tahay waana ku filayno sidaan idin sheegay security council ka hadda markaynu tagnayna Soomaaliya waxay saaxiib la tahay dalal badan oo very powerful waxay ka mid tahay ururo badan oo urur goboleedyo oo aad u xoog badan habeenkaas sinsaariyaynu ku qabanay Israel oo dhulka la goynay arrin kale oo halbar aan ku noqonayo sid kooban aan ugu noqonayo waxay tahay waxa kaloo jiday dagaalka Minnesota iyo Mareykanka ka soo bilowday waxay ahayd attention diversion oo Epstein files oo Trump uu bartamaha kaga jiro ayaa iyada laftigeeda la duwayay oo buuq kale in la abuuro ayaa qorshuhu ahaa Soomaalida scapegoat laga dhigo ama victim looga dhigo arrinta iyada in lagaga baxsado aad uma ayan shaqayn
لكن way shaqaynaysaa in a sense welina waa parallel oo xataa Netanyahu iyo waxyaabahan uu samaynayo waa waxyaabo in dhowr shibrood hal dhagax lagu wada dilo Israel isolationka ay ku jirto inay ka baxdo adduunka buuq kale ka abuurto oo wixii ay ku fashilantay ay meel kale ka buskiciso in Mareykanka ay kula galgalato oo madaxweynahan waxaan u sheegayaa madaxweyne Trump baan waxaan u sheegayaa in Somaliland ay ogoshahay Abraham Accord wixii la oran jiray oo wax ka khiyaali ah meel aan ka shaqeyn mana shaqeyn Abraham Accord mana shaqeyn doonto baan u sheegi doonaa Mareykanka waa aragtay inuu ka gaabsaday sababtoo Mareykanku Israel marka la eego waa mindi cunaha kaga taagan haddana Soomaaliya waxay noqotay nasiib wanaag Ilaahay fadligiisa mindi kale cunaha kaga taagan waad aragtay wakiilka Mareykanka habeenkii qaramada midoobay Security Council-ka la fadhiyay waxay waliga Mareykanku xarajkaan kale ma gelin macnaha dilemma ma istaagin marka wuxuu yiri meel dhexe ka diseen oo gabadhu waxay tiri Israel sida dal kasto madax bannaan ciday doonto bay xiriir diblomaasiya la yeelan kartaa Somaliland aqoonsigeedana wax aanu ka oranayna ma jirto annagu siyaasadii Soomaaliya waxba kama aanan bedel marka labada qoloba inay qanciso bay halka kaga baxeen intii kale jida adduunku wayna taageereen hal qolo oo Israel la safatay Faransiiska ugu hadal jilicsanaa isaguna wuxuu yiri annagu waxaanu qabnaa territorial integrity sovereignty and magaranaysa iyo the independence of Somalia borders keeduna inay intact inay tahay hal dal ay tahay baanu qabnaa intaas ku gaabsadeen marka hawsha iyada waa guul baan ku gaaray arintuna way ka balaaran tahay waxa gudaheena hadda ka socda laakiin gudaheena laftigeeda marka laga eego dynamicsku waa sidaas xagga qolada Somaliland aad bay iyagu lunsan yihiin dhinacii diinta akhlaaqiyadkii Soomaalinimadii anshaxii waxyaabo badan baa lumay oo run ahaantii awalna god bay ku sii socdeen oo waxyaabo badan oo hore ilaa xataa dadku 10 jeer nasabkii ummadda la bedelo oo meel kale lala aado oo siyaasadii la xumayo oo Soomaali lagu diro oo dad waaweyn oo mas'uuliyiin ahaayo runtii dalkan wax ku soo bartay ama madax ka soo noqday oo siyaabo khaldan oo khaa'inul wadannimo ah oo u hadlaya baa dhacday hadallo la isku maxkamadeyn karo rhetoric badan oo la samaynayo oo adarkayso oo runtii adduunka qeyr sharci ka ah oo khiyaano qaran ah oo xukunno adag mutaysan kara bay ku kacayaan run ahaantiina Somaliland hadda meel ay u socoto mal iyadana meel ay soo wadin xataa haday go ilaahay dariiq ay ku go'i karay waajiday laakiin Somaliland dariiqa weligeed maalin xataa hal second ay qaadin dariiqa waxa soo haray qoladii xildhibaanada ahaa oo ka hadlay waxa la oran jiray dabadii ninka dega meel dhaanto ka degu waayay horta iyagu meel ay maraan bay waayeen laakiin hadaladoodii waxay isku sifayeen inay khaa'inul wadani yihiin runtii intaas ka soo baxday sababtoo way taageereen si indirect ah hadday xataa indirectly uga hor imaan lahaayeen waxaan yuhuuddu ay ka wado iyo mandaqada iyo oo ruuxantii aan hadda aqoonsi Somaliland aan ahayn fulow guuli ku dhaweyda waxa la rabay yiraahdaan anagu waxaanu halka u joognaa taageersanayna midnimada ummadda in faraha lala soo galo Soomaaliya shuunteeda Israa'iilna way ku khaldan tahay inta kaliya hadday ku dareen hadalkooda guul bay ahaan lahayd laakiin waa qolo meeshara aad isleedahay hawlo kale shaqo tag bay isaga joogaan waxaad u garanaysaa wasiiradii iyo xildhibaanadii hore iyo madax sare oo ka tirsanaa qof walba markay shaqadu hawshu ay ka soo dhamaato wuxuu iska xaadirinayaa Hargeysa iyo Somaliland oo marka uu guriga ka dhistay oo caynka hore kale taa marka tanna tii hore un kama duwana way tii xaqiijisay inay waxa ay u joogaan ay wax sax aanay ahayn baan anigu isleeyahay maanta barnaamijkii man hadal inta ayaan ku soo gabagabeynaa intaas ku arkayna barnaamijka kale toddobaad kale aan u mahad celinaya ka qaybgalayaasha وشينيو رقدي حبايب سدي كعب سنة دنيا